بسم الله الرحمن الرحيم سيدي عادي markii alaabaad dibadda laga soo iibiyo waxaa jira canshuuraad la bixinayo qarashaad kale oo la raacsiinayo alaabtaas marka rabna qaybtan aan ku fiirino canshuuraadka si loo raacsiyo alaabtaas la soo iibiyo si taas waxaan maanayaa purchase app waxaan soo iibinaynaa alaab new ayaan taabanayaa shirkadda alaabta aan ka iibinayno waxay noqonaysaa Dubai Trading Company qaybta alaabta ayaan soo gudbayaa alaabta aan soo iibsanay ee canshuurta aan rabnay inaan raacsiino waxay noqonaysaa Nokia 3310 mobilkaas ayaan soo qabanayaa toban xabo inaan soo iibinayo aan ka dhiganayna ala xabad $4 bar inoo fadhiisa sidoo kale waxaa jiro canshuur na laga rabo inaan bixino canshuurtaas waxaan ka soo qaadaynaa $5 inay tahay marka waxay noqonaysaa alaabta markii canshuurta lagu qiimeeyo meesha $4 bar oo ka yahay bacdama toban xabo uu yahay $5 inay noqoto waxaan taabanayaa confirm order ayaan hal mar ku jinayaa kadibna waxaan leenahay alaabtii waa qabsanay marka receive ayaan taabanaynaa kabacdina validate ayaan leeyahay hada waxa aad muhiim u noqonaya numberkan inaan save gareysano marka control C ayaan taabanaya qiimeynta ayaan u anfici doonaa waxaan ku soo laabanayaa purchase orderka create bill ayaan taabanaya qaybta hoose marka daa fiirisid alaabtii canshuurta isla socoto ayaa meeshan ka soo muuqanaysa laakiin waxaan rabnaa canshuurta inaan alaabta aan ku qiimeynay oo aan saarno qaybtan kore waxaa ka soo muuqanaya barnaamijkan uligu waa barnaamij aad u ballaaran loogu talagalay ganacsi walba in loo isticmaalo haddii ganacsi aad leedahay noocu raba ahaado maqaayad hotel coffee shop supermarket spare parties ganacsi caadi badeecooyinka ganacsado warshad dukaamo waxaa rabtid lahaw barnaamijkan wuxuu noqonayaa barnaamijkaaga sababtoo ah wuxuuna ku shaqaynayaa nidaam online meesha joogtid caalamkan waa kala socon kartaa xisaabtaadii ganacsigaaga dhaqdhaqaaqaaga iyo waliba shirkadda qaabkay u shaqaynayso meel walbana waa lagu isticmaali karaa computer tablet mobilkaaga waxa dhan oo ku shaqaynaya waa barnaamij aad u fiican haddii aad danaynaysid waxaa nagala soo hadlaysaa taleefanka qaybta hoose ee shaashada kaaga muuqanaya barnaamij ahaan u bixinoonaa ganacsiyadan siinoonaa marka koletaba barnaamijkii faafahintiisa intaan wixii ka dheere waa ku sii doonaa hadii la yiraahdo markii aan la soo xiriirtid amba balan aan ku qabno xarunta noogu maadid aad iyo aad u mahadsan create landed cost bacdama canshuurtan ay tahay qarash la rabo alaabta in la saaro marka waa ku soo qiimeynayna create landed cost kaas ayaan hal mar gujinayaa hadaba canshuurtii $5 ayaa soo muuqanaysa laakiin wuxuu leeyahay hadii alaabta rabta inaan saarto kasii soo koobiyeenay ayaan soo qabanayaa marka control V ayaan taabanayaa kadibna qaybtan hoose intaan validate taabanin waxaan leeyahay $5 alaabtan 10 xabo Nokia 3310 ka ku qiimay computer ayaan taabanayaa si toos ah ayuu ugu qiimeynayaa value adjustmentiga daa'imaano alaabtan $45 ku fariiday 10 xabo $4 bar waay $5 oo la saaray ayaa jirtay waxay noqonaysaa guud ahaan $50 oo noqonaya marka konta marka 10 ku iibsid ala xabad wuxuu ku fadhiisan doonaa $5 ee kuma fadhiisanayo $4 bar sababtoo ah $1 ayaa lagu daray ala mobile waana canshuurtii aan lacagtiisa bixinayno validate ayaan taabanaya marka isla markiiba wuxuu sameynayaa alaabtaas in uu ku qiimeeyo oo isla markaasna uu ku daro $5 kaas si ay u noqoto $5